musharax injineer maxamuud saalax cabdi oo kamid ah musharaxiinta golaha wakiilada u tartamaya kana sharaxan xisbiga talada dalka haya kulmiye kana mid ah musharaxiinta gobolka Sanaag oo ay weheliyaan golaha deegaanka ee xisbiga kulmiye uga tartamaya degmada Garadag iyo wafdi ballaaran oo hogaaminaya ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay badiba deegaanada hoostaga degmada Garadag kuwaas oo wafdiga hogaaminaya musharaxu kala kulmay oo dhaweyn diiran waayeelka waxgaradka haldoorka dhalinyarada iyo haweenka oo aanu kala harin soo dhaweynta musharaxa iyo wafdigiisa ayaa dareen farxadeed ku qaabilay wafdiga oo hogaaminayo musharaxo dadweynaha ku dhaqan deegaanada oo maraya musharax oo soo buux dhaafiyay xafiisyada uu xisbiga kulmiye ka furtay deegaanada oo ruuxaya calanka astaanta oo ah xisbiga talada dalka haya kulmiye iyo istiigarro ku sawiran yahay murashaxo isla markaana ku taala astaanta murashaxa iyo golaha deegaanka ee xisbiga kulmiye uga sharxan degmada Garadag iyo waayeelka iyo waxgaradka deegaanada suugaad la kooban ka soo jeediyay isla markaana ballan qaaday inay cod iyo cududba u hayaan murashax maxamuud saalax cabdi iyo xildhibaanada golaha deegaanka ee xisbiga kulmiye ka sharaxan xisbiga kulmiye waa lafdhabarteena waa xisbiga Soomaaliya in badan baan wax qabadkiisa u aynay hadda radiinamadeenaba ka sharaxan maxamuud saalax cabdi waa hogaaminaya waxa inoo ballana xisbiga kulmiye inaynu codka siino baa inoo ballana waa kulmiye haraynu dad waxaan rabnaa in badan baynu wadannay anigana waxa iga filaatay xisbiga kulmiye magaca kaliya iga filaato berigi la soo sameeyay ayaan ku dhashiyay meel sidii ugu dhigtay yahay waayo deegaanka badan ee loo kala raro heeraha waa nafu malaha waxaynu isku ognahay heer qori dheerow oo subaxada leh xisbiga kulmiye baynu isku ognahay iyo axsaabta la socotay maxamuud hogaaminayo laakiinse waa burushkaas oo nin kasta oo xigtaa waa marmarinaynaa laakiinse codkiinu waxay la tahay astaanteena iyo calaamadeena iyo bartilmaameedeena waa kulmiye qalbi furan iyo laab furan iyo niyad furan baan idin haynaa soo dhawaada niyadeeda iyo hamiyadeedu waa idinka waa kulmiye waa xisbi xaakinka xisbi xaakinka kulmiye xisbiga sanadka waxa si waxaan baan u mahadbalyeynaa codkuna waa sile waxa weeye xisbiga wadana waa xisbi xaakinka kulmiye kulmiye deelahu leeyahay maxamuud saalax cabdi baa leeyahay marka hore waxqabad buu noo qabtay kulmiye deesha yiri ku sintay waa ninka u horeeyay dhagax dhigay ninkii u horeeyay dhagax dhigay iskuulka aan meesha shaqayno kii ka bilaabay deesha weeye ahmiyadda markii hore noo bilaabay maanta inoo haya warcadkaasi socodka waan soo dhaweynaa waxaan ku soo dhaweynaa gacmo furan laawo furan gacmo furan niyo wacan soo dhawaada u leenahay magaaladu waa magaaladeennii cod baa la isahayaa waa la isugayey ilaa shalay saacadkaa laga taagnaa saa kale waa la isugayey waanu idin safraynaa intaa dadku waa idin safray hadda waanu soo dhaweynaa codkana waanu isinaynaa assalaamu calaykum xusbiya hore waa noo yimaadeen dadku marka aanan dee xumaan ku hadlaynin anigu kolley waa joogay oo ma aan tegin kaan dee jeclaawan baan haddii labaad maa sugayey waa ka yimi waa xusbiga talada haya waa xusbiga macaankiisa la helay waa xusbiga dalka ka soo taliyey ee Soomaaliland dara waa la hubaa sugaynayba waxaanu idin sugaynay waa codkaanu idin siinaa meesha dee maba nimaadneen waynu soo dhaweynaynaa si fiican baan idin soo dhaweynaynaa waxaad tihiin dee xusbigii talada hayay ee mudnaa soo dhaweynta haddaanu nahay tuulada fadhiyar si fiican baan idin soo dhaweynaynaa kaliya laaban idin soo dhaweynaynaa waayo reer Godheel waad aragtaan oo dee cidima maqna rag iyo dumarba waa la joogaa waxaan leeyahay waxaweye xusban waa xusbig xaakinkii weeye waa kii Somaliland ku nabad caamaar nin waliba ha caayo marba meel ay isu taagay xusbigii dhibba u taagay Somaliland nabadgelyadeeda iyo waxqabadkeeda weyn aynu ku caanbaxnay inaynu xusbiga aynu haysano aynu hogaamino waxaan ku waxqabadkiisa iyo waxtarkiisaba aynu ilaashano waa ku nabad caamaar maantana waa ugu celinaynaa
sidoo kale wafdigan ballaaran uu hogaaminayo musharax maxamuud saalax cabdi isla markaana ay ku weheliyeen xildhibaanada golaha deegaanka xisbiga kulmiye uga sharaxan oo ka mid ahaayeen maayirka degmada garadag mudane faarax aadan ciise maxamed cilmi maxamuud ayaa iyaguna uga mahad celiyey soo dhoweynta ballaaran ay u fidiyeen dadweynaha ku dhaqan deegaanadan ay marayeen dadweynuhu xusbiyadu way badan yihiin oo meel walba way yaacayaan haddana waxa weeye ujeeddadu waa meelun haddaynu reer hore dheeranahay dee xusbiga kulmiye ee xusbi xaakinka ah ee uu hogaaminayo maxamuud saalax cabdi uu hogaaminayo ee waxqabashadiisa iyo dadnimadiisa iyo aqoontiisa iyo injineernimadiisaba laga warramay intaba aad og tihiin xoolaha neefka ugu iyo neefka curadda isku mid maaha neefka curadda abaynu jecel lahayn wallahi qaantaas waa tii wacnayd isagu wuxuu qabtay waa loogiyo waa nin curada oo waxqabadkiisu uu curad yahay nin ugu maaha dadna waa dad hadeer soo baxay kaa joogi doona ee dalka wax u qabanaya dadka wax u qabanaya aynu waxqabadkiisa ognahay sooma codayno oo wasiirno codka aad baan idinku mahad celinaynaa degmada Gowsaweyne sida qiimaha iyo sharafta iyo qadarinta leh wafdiga u soo dhaweyseen uu hogaaminayo injineer xildhibaan maxamuud saalax cabdi oo u sharaxan golaha baarlamaanka iyo dhammaan xildhibaanada iyo haldoorkii degmada ama deegaanka waxaan leeyahay waxaanu idiin wadnaa xusbi xaakinkii baanu idiin wadnaa waxaan uga jeedaa xusbi xaakinkii baanu idiin wadnaa ballanta aad la gashaan xildhibaan maxamuud saalax oo aan nin diin leh iyo ammaano halkii uu kula noqon lahaa oo dawladda abuu haystaa waxaan leeyahay cod ku filan buu haystaa waxaa laydinka doonaya hadday reer Gowsaweynetiin inaad codka siisaan oo calaamadda godinta ku hubsataan isaga iyo dhammaan musharaxiinta kale ee xisbiga golaha wakiiladana waxaanu idinku soo darnay maxamuud saalax cabdi iskama soo doorin dad baa ictiqaadsan inaanu iska soo qabanay marka xaqiiq laga hadlayo deegaanka garadag hadda matalan oo kale marka laga hadlayo saldhigga garadag cusbitaalka garadag tuulooyinkeeda oo dhan beraagaha laga dhisay isagoo aan xildhibaan ahayn buu xaqiiqdii dhisay waana dooni kartaan xaqiiq marka dhabniba laga hadlayo waxaanu isleenahay ha ka kordhiyo ciddii u dhinaydna ha u dhiso wixii uu ilaahay ugu soo dhiibo sidaan u doornay waa sidaa xildhibaanka golaha baarlamaankana waa gudinta calaamadda aad arkisaan gudintu ma dhacdo sida xisbiyada hore la sheegay ilaa horena way jirtay marka xildhibaanka golaha baarlamaanka maxamuud saalax cabdi isaga waa gudinta xildhibaanada kalena waxa weeye waa 201 ayay ka bilaabayaan marka 201 ilaa 209 ayay soconayaan iyaguna marka aad iyo aad idinku imaadsan waxaanu imika isku sii baraarujinaynaa waxa weeye si aynu aynaan isu waayin waxa weeye inagu isma weyno magaalka Soomaaliya Gowsaweyne iyo anagu isma weyno weeye nimi oo wafdi ahayn waxaanu ay rag codoona cod baan idinka dooraynay codka koowaad waxa doonayay injineerka aad taqaaniin ee amara faacsateen ceelasha idin qoday ee maxamuud saalax intayda kala golihii deegaanka ee degmada garadag baan u soconaa annana codoon baanu nahay hadeer waxaan idin leenahay kaadhar kuuniyay naga lumi ee codka noogu bura kale waa noogu buraysaane aad oo mahadsantiin waxa weeye xildhibaanka aynu wadnaa ee waa garanaysaa maxamuud saalax oo kulli haraan loo sheegay waxaan filaynaa inuu noqdo lulihii geedka wax inooga soo ruxinaa birdaha marka hadda laanta la isku taagan ramir way ka soo daataan oo waa wada garanaysaan dadku say wax fahmayaan baa runtii loogu sheegaa marka laanta la ruxo way daadataa kii ka soo dawladda ka soo daadin lahaa baan ku filaynaa insha Allah kuna malaynaynaa waana ku guuleysanaynaa kulmiye haddaan firadu taago waa xisbigii wax qabadka waynu garanaynaa fadhiyar 10 sanadood ka hor siday ahayd maantana heerka ay taagan haddii biyogelintii ay tahay biyihii baa la geliyey haddii ay tahay iskuulkii waxbarashadii ay tahay 10 sano ka hor wax iskuulaayo ka jiray maysan jirin maantana heerka aynu marayno fadhiyar ay marayso dee qof kasta waa garanaya waayeelkii reer qordheerna way sheegeen way ka hadleen annaguna waftigaygu way ka warrameen waxaanu isla garanay oo isla ognahay inaynu codka ku hubsanno musharaxiinta xisbiga kulmiye ama baarlamaanka ha noqoto ama deegaanka ha noqotee waxaan ku noqonayaa hadalkii waayeelkii hore ay halkan ka sheegeen waxaa la yidhahdaa dawladdu waa geed midha leh waa geed weyn xilalka hadday wasiir tahay hadday tahay agaasime hadday xubin baarlamaan tahayna
waa lulayaal lagu lulanayo lulahaasi qofku waxa jira qof aan garanayn sida uu lulaha midhaha uga soo daadiyo waxa jira lula gaaban oo aan gaadhayn waxa muhiim ah oo waxaaba ka sii muhiimsan inaad hayso meeshii la lulayay meeshii midhu yaalan inaad haysid waxa weeye waa dawladdana waxa heli kara oo warkeeda heli kara cidda ka tirsan xogogaal u ah xildhibaanka ka sharaxana haddii aan la yidhaahdo haddaad soo saartaan oo anigay deymaysaan haddii aan la yidhahdo inaan idin deymoogo oo aan insha allah wixii aad idinla qaban karo idinla qabto oo roo laydin sameeyo baan insha allah aan ilaahay aan rajaynayaa waxaanu u nimi inaanu indhaindhayno xaaladda iyo xafiisyadii xisbiga iyo aanu ka wareelno inaanu dadka u nimaadno inaynu isu sii aragno iyadoo muddo dhow ay bilaabmi doonaan kaambeynadii oo aynu kaambeynka waxdana ka dhigi doonno haddana waxa maanta intan hornaha inaanu qabanno waa daruuri bay noqotay aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa waxaanu dhammaantayo sidnaa ama farrintaanu sidnaa waxa weeye waxaanu nahay annagu xisbulxaakimkii waxaanu nahay xisbigii talada hayey waxaanu nahay meeshii waxaynu siyaasadda looga shaqeeya ama siyaasadda waxa loo galaa in baahiyaha asaasiga ah dawladda laga qabsado oo ay dawladdu meeshaasi u qabato hadday iskuul tahay iyo hadday biyo tahay iyo hadday caafimaad tahay waa ballami karnaa beritana waa isku soo noqonaynaa waxaynu ku ballami karnaa waaynu ku ballamaynaa inaa idinkuna codka damaanad qaadaan aniguna aan damaanad qaado waxay u baahan tahay ee dawladdaa ku xigan haddii aan la yidhaahdo astaantu waa gudintaa qofka markaa aan garanayni wuxuu odhanayaa gudinta unay calaamadii waa la calaamadinayaa codka halkaasuu ku badanayaa insha allah wixii dambena waa ku wada xisaabtami doonaa oo idinkaa hortiin ayaa niman doonaa oo aynu ku xisaabtami doonaa waanu ahayn waxaan noo soconaynay waqtigii horelaa lama gaadhin waxaan noo soconaynay inaanu xafiisyadii iyo soo marno aanu dadka dee soo xogogaal noqono aanu soo marno gudheelina dee beelihiaanu marayna bay ka mid ahayd meelaha ugu muhiimsaneeda dee dhinacyada bay ka mid ahayd waxaan idinka codsanaynaa horta marka hore inaa codkana siisaan codka aanu idinka doonayno waxaan sida raggii hore sheegeen ee iga horreeyey warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Somaliland gardag